السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ذو كحيران كنالك سكينة شانل هاد بايد ودا سلامة دمانتي ميلك سادوكي كجوكتا وحيديري جينا فرحة عافماد. أصحاب maanta waxay noo wada waxa waaye pancake yar oo fudud oo jilicsan oo qurux badan oo macaan oo kaalis gaarag ah oo aan sharaxaad u baahnayn oo isagu sharaxaya. insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka wada heli doontaan. waa quraac yar oo fudud oo easy ah oo qurux badan familkaaga ilmahaaga caruurtaada ay ka heli doonaan insha Allah. sidaan u sameeyay ila daawada daawasho wanaagsan asxaabe. halkan waxaan ku soo diyaarsaday ingredientkii amba alaabta ka samaysan lahayn pancake. ugu horey waxaan u baahanahay waxa waaye hal xabo ukun ah amba beed ah. kadibna waxaan ku darsanaynaa hal qaado amba malqaacad oo sonkor ah. marka anigu ma dhow pancake waxaan rabaa wax macmacaan inaan ku cuno, taas waa malqaacad kaliya ugu darsaday. laakiin hadaadan macmacaan ma dhow ku cunayna badii mala wax noocaas oo kala 3 ilaa 4 malqaacad oo sonkor ku darso. marka sonkorteedu way burburan tahay xoogay baan beedka iyo sonkorta isku garaacayaa si ay xoogay sonkorteedu igu sii yara milanto insha Allah. asxaabe markaa beedkii iyo sokortii xoogay isku soo garaacnay. hadda alaabteena kale oo dhan oo meesha taala hal mar baa ku wada darsanaynaa. hadda waxaan ku daray waxa weeye badhar 2 malqaacadood amba 2 qaado badhar aan soo dhalaaliyay baan isticmaalay. laakiin subag amba saliid waxa haysatid baa isticmaali kartaa. kadibna waxaan ku darsanaynaa waxa waaye baking powder 1 teaspoon baking powder ah. hadaadan malqaacadan haysan dib ma laha, malqaacadeena adigoo cuntada ku cuno afkeeda hore uun ku cabiro baking powderka. kadibna waxaan ku darsan doonaa waxa waaye daqiiqda aan waxaan isticmaalayaa koob daqiiq ah amba burkeena cadaanka ah. kadibna waxaan ku qasayaa waxa waaye hal koob oo caano ah. caanahayga normal waaye waa kuwa baakad gareysan, ani caanaha haysata isticmaalaysaa. koobkayga burkaan ku isticmaalay iyo koobka caanaha aan ku isticmaalaya same size waaye amba way isleegihiin. marka koobka daqiiqda waxaa ku qasaysaa koob caano ah. haddii aad kasii badinayso tirada like 3 koob oo bur hadaa rabto inaad samaysato 3 koob oo caano ah baa ku qasanaysaa. saliid iyo waxyaabahaasna waa u badinaysaa, yacni mar walba waa la jibaaraysaa. caanaha waxaan ugu darsanaynaa ayar maadaama aan ku qasayo malqaacadan oo aanan mashiin ku qasanaynin. ayar baan ugu darsanaynaa. cajiinkeena si amazing u qasaynaa amba si xooga u qasaynaa si uu burburku uga baxo oo smooth ay u noqoto. waxyaabaha daqiiqda laga sameynayana the more xoog u garaacid the more muddo toolo cuntadaadu ay amazing noqonayso amba wax fiican. marka si macaan baa u garaacaynaa. fiidiyoga speed baa ku furan muddo badan baan garaacaynaa insha Allah. caanahana ayar baa ugu darsanaynaa ilaa ay ka gaadho xadkii aan ka rabnay pancake insha Allah. daawasho wanaagsan. cajiinkeeni saa u jeedaan xoog baa u soo qasanay, smooth baan ka dhignay bilaa burbur bilaa waxba ah. kadibna caanaha waxaan ku darsanaynaa inta kale oo aan u baahanahay insha Allah. qasitaanka markaan u dhameyno dhulka ma dhigayno oo ma khamiirinayno, horaan ka saaraynaa maqligeena dabka kadib horaan ka dubaynaa pancake ma la khamiiriyo. marka garaacid ba horaan ka dubanaysaa. cajiinkeena saas diyaar noogu yahay. caana inta halka ku soo hadhayna uma baahna ma isticmaalayo. hadda waan dubaynaa ina marsha asxaabe. maqliga dabka soo saaranay. dabka waxaan geeyay low kan ugu hooseeya. maqligana aan wax saliida marinin baa cajiinka direct ugu soo shubanaynaa insha Allah. size-kan waxaan jecelahay inuu yaraado pancake-gaygu, laakiin adoo saarabta u dib hataa waa weeleysanaysaa, hataa medium ka dhigaysaa, hataa sidoo kale ay yareysanaysay iyo hadii aad intan xataa ka sii yareysanaysaa
caadi waaye. soo pancake korka markuu uu indha kasoo yeesho macnaheedu waxa waaye hoostuu kasoo bislaaday. markaasaan dhinaca kale aan u rogeynaa korka isagoon ka wada qalalin. anu ma jecli korka inuu ka qalalo, just indha markuu kasoo yeesho baanu jeclay inaan dhinaca kale u rogo. marka dabka ha u dheereynin, haddaa dabka u dheereysid cajiinkii oo dhexda ka bislaanin baa hoostu kaa gubanaysaa. low to the medium ku duba dabka, saliid la-aan, size-kana saa rabto ka yeelo. indha markuu kasoo yeeshana dhinaca kale u rog. soo saasaan usoo wada dubaynaa pancake-geena ilaa iyo aan kasoo wada dhameynayna insha allah. soo isla socod wanaagsan ilaa iyo dhamaadka asxaabe. asxaabe saa u jeedaan cuntadeeni amba quraacdeeni sida quruxda badan ayaan kusoo diyaariyey. insha Allah inuu idin cajabin doonaan rajeynaya. pancake waxaan kusoo sharaxday wuxuu ahaa sonkor powder ah, malab, strawberry, laba nooc oo sabiiba, midna almond yahay kalena magaciisu waa igu dhagan yahay. labada kalena midna shaah baan kusoo shubtay, midna caana kusoo shubtay. waa quraac yar oo fudud oo hadana qurux badan oo waxa la yiri wixii indho
cajabiya baamaankana cajabi I don't know way iga khaldantay laakiin saasoo kale ahayd marka insha Allah waxaan rajeynayaa quruxdeeda inay cajabin doonto anigana waxaa idin ka ogahay dhadhankeedu inuu macaan yahay so waanoo videoga ku xiga waxaan idinkaga tagayaa maca salaama thank you for watching waan salaama dhamaantiin asxaabtayda bye